ninkan sixirooli wuxuu leeyahay markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay waxqabadiisuna daakiradiisuna wixii loo laqiban xejinaya ii doona waxaa muuqata in wiilkii la raadiyo lasoo helay dabeetana sixirooli baa loo geeyay inuu sixirka baro wiilkii dariskiisii sidii usoo qaadanaya sixiroole ugu tegayey ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmaca ku jira mank wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqdo iska cibaadaysta nin wadaado sawmaca ku jiro arkay ninkii baa la fadhiistay ninkii baa wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warraba ninkii dhallinyarada tawxiidkani wuu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka warramayo xaggana dee daris iyo iskuul buu ku jiraa looga baahan yahay inuu si fiican u barto wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaade uu kusii socdo sixiroolaha wuxuu la sii yaro fadhiistaa wadaadka xoogaa buu ka dhigtaa dabeetana wuu dhaafaayo wuxuu u tagaa sixiroolis iyo uu kasoo dhigtaa markuu sixiroolaha kasoo noqdo ee uu guriga kusii socdana waa la sii fadhiistaa wadaadka waxoogaa kaluu kasii akhristaa dabeetana gurigoodii buu tagaa sixiroolii baa wuxuu dareemay wiilku inay yar habhabsaamayo waqtigii dabeetana waa maagay oo inankii waa la dilay reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo wadaadkiiba ku yidhi niyo waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhib baa ka jirto waa lay tumayaa wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan ha u sharxaane markaad sixiroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaamay reerkaa yara habsaamiyey markaad guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa dariskii baa nala yara dheeraado sixiroolihii ayaan maanta ku habsaamay wiilkii farsamadiisii buu samaystay dabeetana arrinkiisii buu iska watay wiilkani waa ghulaam af carabiga ghulaamka waxaa la yidhaahdaa qofka xaddu tamyiiskana dhaafay buluuqana aan gaadhin yacni 7 jirna waa ka wenyay 15 jir meelahana ma gaadhin yacni waa teenager 13 12 10 somewhat like that weeyaan wiilku durustiisii buu iska qaataa xaggana xaq baa loo dhigaa xaggan kalena baatilkaa loo dhigaa akhiiran wiilkiioo wixii uu baranayay baranaya ayaa magaaladii bahal baa ku soo baxay xadiiska qaarkood libaax bay ku sheegayaan dabeetana dadka cabsi geliyey wiilkii baa wuxuu yidhi haddaan kala ogaanayaa labadan madraso tawarkeedu sax yahay dabeetana intuu dhagax qaatay buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ku weydiisanayaa haddii wadaadkaasi waxa uu dhigayaa ay ka khayr badan yihiin oo agtaada lagaga jecel yahay ninkaa kale sixirooli wuxuu sheegayo ilaa uu dhagaxayga yar ku dil daabadaas buu yidhi ilaahay buu u baryey dabeetana bahalkii buu dhagaxii ku dhuftay ilaahay waa ku dilay waa dhintay wadaadkii buu yimi oo arrinkii buu sheegay maanta magaaladii waxa bajiyey bahal dabeetana saasaan yeelo ilaahay baan bariyey oo dhagaxaasaan ku dhufto waa dhintay wadaadkii inankii wuu tashjiicay wuxuu yidhi waryaa maanta adaa iga fadli badan waxaanan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa inuu soo gaadhi doono ibtilaagaasi maalinta kuu yimaado niyow hay sheegin waxay idhahdaan wadaadkani laba qadiyadood buu inanka u sheegay markan mid wuu tashjiiciyey qofka bini aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican qofka la qiro inuu waxa ka sameeyey saa Soomaaliya tiraahdo laa shukra cala alwaajib sax maaha waxa saxa qofka hadduu wax wanaagsan qabtay in la dhiirigeliyo waxa saxa macallinku inuu isku dayo ardaygiisu inuu isaga dhaafi karo ka kori karo uu ku farxo inaad weligaa dadka luqunjibaadh ku haysato tiraahdo cidina iyo aniga soo gaadhin meeliina hoose marmara waana reerka u wadaadee idinku maaha sax sida saxda ah waxa weeyaan inaad ku faraxdo dadku inuu mustaqbal yeesho intaad adigu garanaysay in ka badan hadday gartaan inaad ku amaado bulshaduna saasay ku horumartaa marka ay hore u socotee dadka hore loo wado idan wadaadkani mar inankii wuu dhiirigeliyey mar kale bay yidhahdaan tawaaduc buu muujiyey oo ah qof isla weyni ka muuqatay waxaan aanunba wax garanaya intiina kale waxbaa ogtiin yaana idinka weyn oo intaa kusoo dhex jiray ma taagna bay leeyihiin tawaaduc buu muujiyey waa inaan yar ninkuu leeyahay maanta adayga mar saddexaad bay yidhahdeen wuxuu muujiyey dadka asxaabul xaqa ahi
in dunida tan imtixaan ay ku maraan yacni dunidu ma aha daartii abaalmarinta daarta saxda ee abaalmarintahay waa xaggee waa aakhiro dunida tani waa daaru libtilaa'i walimtixaan markaad imtixaan nooca ka baxdaba mid nooc kale unbaad gelaysa saad imtixaanadaa u wado maalin mid dhaqaale maalin mid caafimaad maalin mid waxbarasho maalin mid shaqo maalin mid guur maalin mid caruur saaduun maalin walba problem u xalilaysa problem u wado ayay naftu kaaga baxaysaa adduunku markaa waa imtixaan gebigiiba nataa'ijta rasmigaana waxaa la helaa marka aakhiro la tago wiilkii ilaahay buu si dhaba ugu xidhma towxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay kadib wuxuu noqday nin dadka ilaahay u barya oo ilaahay ducadiisa aqbalo qaar baa u yimaada indhala ilaahay buu u baryaa ilaahay baa indhaa u bixiya qaar baa u yimaada xanuuno kala qaba ilaahay buu u baryaa ilaahay baa caafimaadiya magaaladii waa isu tilmaamtay wiilkaa yidhi hadduu kuu duceeyo ilaahay ducadiisa waa kuwa aqbalaya iyadoo arrinku halkaa marayo ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa dadkii ku wareegsanaaye la joogay mid ka mid a ayaa indhabeelay wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhuhu ay baxayaan dabeetana xoolo badan buu soo qaaday wiilkii buu yimo wuxuu ihi waxaasoo xoolaa baan kuu sidaa haddaad labada indhood ii bixiso ay ii fiicnaadaan wiilkii wuxuu ku yidhi dhegayso anigu indhaha ma bixiya buu yidhi ee dadku hadday ilaahay rumeeyaan baan ilaahay u baryaa ee adigu ilaahay rumee ilaahay inuu rabbiga iyo caqiida ninkani waa wiilkan ha yaraado waa daaciya diin dadka u sheegaya ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi markaad qof dhab oo ahlu tawxiid ha noqoto aniguna ilaahay baan kuu barya in ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo ninkii sidii buu yeelay ilaahay buu rumeeyo waa qumanaad wiilkiina ilaahay buu u baryey dabeetana labadii indhoodba ilaahay baa dib ugu soo celiyey wuxuu ku noqday gurigii boqortooyada dib markuu ugu noqday wuxuu u yimi boqorkii baa yidhi waar indhaha ayaa kuu bixiyey boqorkani wuxuu sugayaa dee isagaa dadka rabbi u sheegan jiray markaasuu yidhi rabbigay baa ii bixiyey awalaka rabbun hayri buu yidhi oo macidaan aniga ahayn baa ku rabbiya mid kalaabaad rumaysan tahay rabbii wa rabbuka allah buu yidhi aniga rabbiga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya hooy dowladdii mashkilad cusub baa ku soo baxday wuxuu yidhi ninkan ha la caqaabo waa la toorjargareeyey dabeetana wiilkii buu sheegay wiilkii baa loo yeedhay wiilkii wuxuu ku yidhi ma wixii aan ku baray ma waxay gaadhay maanta inaad dadka indhaha ugu bixiso baalkii sixirka aan ku baray waran sixirna indha kuma bixin buu yidhi dadkan ilaahay baan u baryey rabbigood baan u baryey awalaka rabbun hayri oo adiguna ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi wiilkaaga kani wuxuu yidhi ilaahay baa noo rabbiya isna ha la toorjargareeya baa la yidhi oo wadaadkii buu sheegay waxaa la yidhi sartu meeshay ka qurantayba waa ninkan waddanka ninka fidmeeyey ee balada dhigay waa wadaadkan sawmacadash ku jira wadaadkan waxaa la weydiiyey ma ka noqonaysaa waxaanaad rumaysantay mise waa lagu dilaa wadaadku wuxuu yidhi ka noqon maayo hala dilay baa la yidhi god baa loo qoday miinshaar hagso ayaa halka laga saaray dabeetana labaa loo kala jeexay aa laga takhalusay ninkii baa la keenay isna odayga indhaha loo fiiqay waxaa la yidhi haye ma ka noqonaysaa adigu may buu yidhi caqiidadu hadday degto arag ninkan shalayta gaalka ahaa ee halkan joogay ee maanta iimaan helay wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin dabeetana may buu yidhi isna waxaa la yidhi hala miishaareeyo isna halkaa laga miishaareeyey labaa loo kala jaray wiilkii bay soo gaadhay wiilka dee sixirkiina isaga haya uu boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay mushkiladan kalena isagaa geystay dabeetana wuxuu inta niman ku daraybu wuxuu yidhi qaada waxaa geysaan buurta gebigeeda saara uu biqi doonaa markuu arko godkee waxaad tidhahdaan ama halkaasaa lagaa tuuraya ama ka noqo waxaa kanaad wado way kaxeeyeen halkii bay geeyeen markii dacalkii la saaray ayuu ilaahay baryey kan ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay ou sharkooda adigu igaga fillow buu yidhi
buurtii baa gilgilantay nimankii baa ilaahay ka daadiyay askarta ahaa isagii baa badbaaday u soo noqday iskamuu tegin wiilkan iyo mays odhan gaalkii ilaahay baa kaa badbaadiya baxso ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshada tan inuu bedelo boqorkiibuu kusoo noqday ay kan buu yidhi boqorkii wuxuu yidhi maya ciidankaa kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi ciidankan u diyaariyo wuxuu yidhi doontaa qaata wiilka nasaara badweynta geeya waxaad tidhahdaa ma ka noqonaysaa hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi waa la kaxeeyey baddii baa la geeyey ma ka noqonaysaa baa la yidhi ilaahay oo adigu sharkooda igaga fillow buu kuwiina ku ducaystay doontii baa qallibantay nimankii waa dhinteen isagiina ilaahay waa soo badbaadiyey waa soo noqday boqorkii buu u yimi haddana waar meeye buu yidhi raggaan kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi kuwaana boqoroo ma rabtaa buu yidhi inaad idisho haa buu yidhi sidaad ii dili kari lahayd baan kuu sheegayaa buu yidhi dadkao dhan isugu yeedh magaalada degan dabeetana meel markaad isugu weedho aniga tiirka igu xidh kadib qaanso qaado jucbadaydaa leebabka ku jira arooskii uu halka ku sitay xabad kala soo baxa gantaalkaa yar ama leebkaa kala soo baxa dabeetana markaad qaansada saarta leebka waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam magaca allaan cuskaday ghulaamka rabbigiiya intaa dhe buu yidhi markaasumaad ii dili kartaa si kale ood ii dili kartaa ma jirto dadka muxuu ku leynayay ilaahay baa noo rabbiya soo maaha laakiin nimanka siyaasiyiinta hadday dantoodu gasho markaana uu iska odhanaya dadka wuxuu ku leynayay waxaan wadadii ku dhinteen ilaahay baa noo rabbiya buu dadka ku laayay iminkana wuxuu rabaa inuu inankan dilo laakiin dantii waxay ka gashay inuu yidhaahdo maxay bismi illaahi rabbi lghulaam dadkii oo dhan buu isugu yeedhay meeshii baa wiilkii lagu xidhay sidii uu sheegay buu qaansadii u qaatay dabeetana waa bahashii waa ku riday wuxuu ugu ducaystay magaca allaan u cuskaday oo wiilkan yar rabbigiiya leebkiibuu ku ganay halkaasuu kaga dhacay dhafoorka wiilkii yaraa halkiibuu wiilku gacanta saaray waa dhintay magaalada dadkii joogay waxay idhahdeen wiilka amar haddii laba dili kari waa in rabbigii loo cuskado mooyaane aamanaa birabbi lghulaam bay idhahdeen marka annaguna wiilkani rabbiguu rumaysanaa ayaanu rumaynay bay idhaahdeen boqorkii baa loo yimi oo waxa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay soo maaha inuu diini faafto dadkani diinta rumeeyo tii baa dhacday baa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay wuxuu yidhi waxay yeeshaan magaalada sekad walba godad ka qoda dabeetana dab ku shida xaabada dugdhiga markay holaacdo guryaha dadka ka soo saaro waxaad tidhaahdaan ma ka noqonaysaan mise waa laydin gubaa wixii ka noqda sii daaya wixii kalena guba dadkii markii meeshii la tubay aa la yidhaha ma ka noqonaysaa may bay yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay waa lagu ridaa akhiiran waxaa soo gaadhay qof dumar ah oo ilmo yar naaska jaqsiisanaysa markii ay meeshii timi bay waxoogaa dib isu yara geejisa ilaahay wuxuu ka hadlayay ilmaheedii yaraa waa 3 ghulaam uu nabigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nabi ciise ka mid ah wiilka yar baa ka mid ah Jurayj wiilkii looga hadlayay ka mid ah waxay ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadlayay dabeetana wuxuu ku yidhi maxay yaa ummaa isbiri fa innaki cala alxaq hooyoy sabir xaq baad ku sugantay buu leeyahy kii naaska nuugay hooyoy sabir xaq baad ku sugan tahay kadib ayaa islaantiina la gubay qisadu wax ka dambeeya laynooma sheegin waa intaa qur-aankaa ilaahay kaga warramay markaa suuraddan la yidhaahdo waassamaa'i daati alburuuj walyowmi almawcuud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إلهي وادارت سمدن براجت له إيا شاهدك إيا مشهودك يوم الموعود صدح ذا وحبا إلهي كدارت markuu dhaartay kadib baa ilaahay wuxuu yidhi waxaa la nacdalay oo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey qoladii godadka u saaxiibka ahay markaas haddana la yidhi annaari daati lwaquud kuwii dabka u saaxiibka ahaa waxa lagu hurinayo wadta waa goorma id hum calayha qucuud baa ilaahay yidhi qoladani waxay ahayn ku dadkan saadiyiinta la yidhaahdo saadiyiinta waxa weeyaan dad ku raaxaysta bini aadamka tacdiibkiisa ونوع متحوش يعني هلكا ugu dambaysa bini aadamnimadu markay inxiraafto ay gaadhawayaan inaad daawato bini aadam la cadaabayo riwaayadihii romanska la dhigi jiray maxaa la sameeyaa libaaxiya meel lagu xareeyo deetana dad baa loo soo tuuraa waxaa la daawadaa sida maxay uu googoosanaya libaaxu dadka uu leynaya la daawadaa ama ninku suu libaaxiska waxay dhahdaan tortureka bini aadamka inaad ku raaxaysataa waa meelaha insaaninimada ugu dambeeya nimankan ilaahay wuxuu ku ceebayay gubis qura maaha kuwii dadka gubayay ee marka la gubayana dul fadhiyay baa ilaahay yidhi markhaatiga ka ahaa idhum calayha qucuudun wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud soo xaadiray baa ilaahay leeyay waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya dadkaasi wax dembiyo ay galeen inay jirin inay maxay ilaahay uun kelinimadiisa rumeeyeen mooyaane qisada tani markaa waxay sheegaysaa kow batalka geesiga qisadan matalaya waa wiil yar waxay tilmaamaysaa insaanku inuu yahay waxa wax bedela hadduu xaqa haleelana xataa hadduu yar yahay inuu wax bedeli karo magaalo dhan iyo dowlad dhan iyo boqortooyo dhan waxa gelgilay ee dadka dhan muslim ka dhigay waa wiil aan weli qaan gaadhin sida qisadani ka warramayso wiil aan weli qaan gaadhin laba qisadani waxay sheegaysaa qofka haddii xaq iyo baatilka si siman loogu bandhigo inuu xaqu koraynayo laba aqoon-yahan baa wiilkan helay oo mid waliba farsamadiisa u daacad yahay garanayana midna sixirkan iyo baatilkan iyo waxa kan buu khabiir ku ahaa oo waxbarayo waddanka oo dhan looga yaqaano inuu yahay saaxirkii boqortooyada ka kalena rahib diinta garanaya buu ahaa fitrada bini aadamku markaa abuurka bini aadamku wuxuu u janjeedhaa xaqa haddii si siman loo soo bandhigo innaga waxayna haysta baynu soo tilmaamnay qayb dad la tababaray ayaa soo bandhigaya wakti ku filanna waa la siinayaa qofka bini aadamkii waktigii ugu habboonaaye wax qaadan karayeyna waa lagu barayaa waa systemka dowladu siduu socdo qaybteennana cid aan ama aqoon-yahan ahayn ama aan farsamada soo bandhigista la barin ama wakti ku filan aan la siinin ayaa lagu wadaa waxaanaynu rabnaa inay beratabaan markaasi waxaan leenahay haddaynu systemkan system u dhigmi kara dhinac dhigi karno ama ha noqdo waddankan waxaa la ogolaya iskuulladaada inaad yeelato inaan iskuulla yeelano ama ha noqoto haddaynu iskuulla yeelan kari weyno ama after school iskuullo la furo ha ahaato ama madaaris ha noqoto system qofkan mabaadi'diisa diineed bari kara haddaynu u samayno waxaan leenahay inuu waa balance garayn karnaa mushkiladda dhanka kale kaga shubmaysa laakiin inaga waxa weeyaan dhanna waynu kaga shubaynaa dhanna wuu madhan yahay qisadani markaa waxaan usoo qaatay waxa ay tilmaamaysaa haddii si siman qofka wax loogu sheego waa walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim waxay u badan tahay inuu raaco maxay xaqa waxay kaloo qisadani tilmaamaysaa qur-aanka qisaska ilaahay kaga warramo dhowr qaybood bay u qoran yihiin qisas gaaliya muslim isqabtaa laga warramay oo markay halkii u dambeysay maraysay ilaahay cuquubo soo dejiyo gaaladii la mariyey muslimkii waa la badbaadiyey laakiin wax kaloo uga sii dambeeya qur-aanku inoogama warramin markaan qisadii nebi nuux nebi huud nebi saalix ambiyadaas oo dhan waxaa laynooga warramay in la isqabtay dabeetana markay halkii u dambeysay gaadhay qoladii gaaleed balaaya ku degtay
kuwii dambe la badbaadiyay wax dambe qur-aanku inoogama sheegin. waxaa kaloo qur-aanku uu ka warramayaa qisas la isqabtay dabeetana kuwii gaaleed ilaahay halaagay, kuwii muslimiinta soo hadhay dowladnimo iyo cizi iyo xoog iyo ay heleen. waa qisadii nebi muuse oo kale, reer banu israa'iil. fircoon baa la isqabtay, akhiiran fircoon iyo kooxdiisii ilaahay waa halaagay. reer banu israa'iille dowlado waaweyn baa ilaahay u sameeyey oo waxay noqdeen dad sii jira. qayb saddexaad buu qur-aanku ka warramayaa ah gaal iyo muslim isqabtay oo muslimkii la laayay oo gaalkii wax ku dhacayna aan qur-aanku ka warramayn. qisadan aynu hadda joogno waa dad muslimiina oo islaamay waan wax dembiya gelin. wamaa naqamuu minhum ila an yuuminuu billahi alcasiiz alxamiid, ilahay ku tilmaamayo waan terrorist group ahayn, cidna wax u geysan waxna samayna, ilaahay rumeeyey iyo gaalo isqabatay oo kuwii mu'miniinta ha la laayay dabeetana ay ku gabagabowday. kuwii gaaleedna wax ku dhacay qur-aanku kama warramayn. bale ilaahay wuxuu ka warramaya ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كوي مسلمين تا اتحامي مؤمنين تا امتحانك كو سميي قوبي ان توبت كاني بايلهي الهي حلميسا بلو فيرسو حلي هذا توبت كان تاني دكو اولياديدي waxa ku sameeyay waa idinka aqbalaya toobada waadib soo salaantaan. kuwii wax dhibay waliba aan toobad keenin baa ilaahay yiri kuwaasi waxay leeyihiin falahum cadaabu jahannam walahum cadaabu alxariiq. iyana jahannamiya mid la isku gubo cadaab wax gubo bay leeyihiin. weli ilaahay xilmigiisa kuwa wuxuu tilmaamaya toobadii u furantay wadaydiinta soo galaan in ilaahay toobadooda ka aqbalaya. qisada xaggeeda kale waxaa ilaahay ku tilmaamaya walow nimanka kan la laayay haddana inay guulaysteen. iimaanku bay yidhaahdaan saddex goor buu qofka mu'minkii guulaystaa. kow, iimaanka markuu qofka mu'minkii hela bay yidhaahdaan wuxuu helaa iطminaan alqalb wa raaxat albaal wa istiqaamat almanhaj buu helaa bay yidhahdaan. qof qalbigiisu xasiloon yihi warwar iyo walbahaar aan qabin psychologically degan dariiq saxa haya buu noqdaa. dunidaynu maanta joogno waxaa ka xanuunada ugu badan maanta dadka bini aadamka ku dhaca waa kuwa caqliga iyo maskaxda iyo neerfaha iyo waalida keena iyo istilka iyo baliya baaskan. iimaanku wuxuu keenaa maxay? alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub, itminaan alqalb iyo raaxat albaal. psychologically qofku inuu dego, inaanay dunidu mashkiladba ku noqono wax weyn la ahayn, inuu haysto meeshan uu joogaa inay tahay daaru ibtilaa wa imtixaan, qadarka ilaahay inuu kalsooni ku qabo. waxaasoo dhamme waxay abuuraya inuu qofku naf ahaan xasilo, inuu rumaysan yahay dariiqii saxa ah inuu hayo, istiqaamat almanhaj. kaasi waa mar. waa mar labaadee qofka mu'minka ee dhab tahay wuxuu helaa bini aadamku uu iska ammaan jecel yahay in la magacaabo, xagga rabbi inuu ka magacaaban yaho laga ammaanayo. oo waxaan qur-aan badan ilaahay ku tilmaamaya fadkuruunii adkurkum. qofka addoonka ixusa anaa idin xusaya baa ilaahay ku leeyahay. haddaad mala iga xustaan mala-un khayrun minhu baan kaa xusayaabaa ilaahay leeyahy. meeshaad joogto mala ka khayr badan. waxau nabigu tilmaamaya ilaahay qofku jeclaaday jibriil buu sheegaa wuxuu idhaha hebel waan jeclaaday ogow. jibriil baa sama la hadla malaa'igta joogto wuxuu idhaha hebel jeclaada, ilaahay baa jeclaaday ilaahay ay dhulka u soo degto. la yidhahdo qofka ilaahay baa jeclaaday jeclaada. idan magac iyo maamuus buu cinda allaahi ka helaa. rabu samaawaati walardi baa magac iyo maamuus siiya. akhiiranna xisaab yasiira iyo jannu helaa. maalinta qiyaame in ilaahay u fudaydiyo 50,000 sannadood maalinabaa kaa dambayso la isxisaabinayo. maalintaa xisaabteeda in ilaahay u fudaydiyo abaalmarkiisuna inuu noqdo maxay? janno uu galo. saddexdaa dufcaba waxa la socda bay yidhaaheen ridwaanullah wa rida allaahi akbar min kulli dalik. ilaahay inuu kaa raalli yahay.